Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxa uu ahaa jodyahankii soo maray qarnigii 20aad. Waxa uu soo maray nolol adag waxaana geeriyootay isagoo 9 jir ah hooyadii. Waxa uu soo noqday tagsiile iyo dukaanle. Haddana waxa uu ahaa qof diinta Islaamka wax badan u qabtay. Daawadayaal maanta waxaan ka hadlaynaa sheekada Sheekh Axmed Diidaad, jodyahankii qarnigii 20aad soo maray ummadda Islaamka. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Axmed Xuseen Faadim Diidaad waxa uu ku dhashay 1918 gobolka Sawaraad ee dalka Hindiya. Xilligaasi dalka Hindiya, Bakistaan, Bangladesh iyo dhammaan dalalka dariska la ah waxaa gumaysan jiray boqortooyadii Ingiriiska ka hor inta aysan iskaga bixin 1947. Aabihii waxa uu ahaa beeraley ku noolaa dalka Koonfur Afrika, halka Axmed Diidaad iyo walaalihii ay ku noolaayeen dalka Hindiya, waxayna kula noolaayeen hooyadood ka hor inta aysan dhiman hooyadood sanadii 1927. wuxuuna jiray xilligaasi 9 sano. Axmed Diidaad kadib dhimashadii hooyadii waxa uu go'aansaday aabahood inuu u kaxeeyo meeshii uu ka shaqayn jiray oo ahayd Koonfur Afrika. sanadii 1934 duruuftii adkayd ee ku noolaayeen awgeed wuxuu aabihii ka saaray waxbarashadii uu dhigan jiray. waxay kula noolaayeen magaalo la dhaho Durban. faafinta diinta Kiristaanka ee magaaladaasi waxa uu ahaa xilligaasi mid si xawliya ku socday, waxaana ka jirtay xilligaasi magaaladaasi kulliyad hawsheedu ay ahayd soo saaridda dadka faafiya diinta Kiristaanka oo keliya, waxaana la dhihi jiray kulliyadda Adams. Axmed Diidaad markii uu joojiyay waxbarashada waxa uu ka shaqo bilaabay dukaan yar oo ka soo horjeeday kulliyadaasi. ardayda lagu tababari jiray kulliyadaasi markay ka soo baxaan oo ay yimaadaan dukaankii yaraa uu ka shaqayn jiray Axmed Diidaad, waxay ahaayeen kuwo weydiiyay su'aalihii ay ku soo baran jireen kulliyadaasi, sida nebigaagu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee muxuu dhowr jeer u guursaday, muxuu islaamka dagaal iyo seef ugu faafay, iyo su'aalo la mid ah. dhammaan su'aalahan ay weydiinayeen Axmed Diidaad wuxuu ahaa mid aan jawaab u haynin. maruu ka sheekeynayayna waxa uu yidhi, waxaan ahaa qof aan diintiisa ka aqoonin wax dhaafsiisan shahaadada. waxaan dareemay xeelad la'aan, sidoo kaleeto waxaan ka qiirooday diinteeda oo aan difaaci karin. maalin maalmaha ka mid ah isagoo hagaajinaya dukaankiisii yaraa ayuu arkay kitaab qadiimi ah oo habaas iyo boor qariyay, yaalayna miis ka mid ah miisyada dukaankiisii yaraa. kadib markii uu boorka ka jafay wuxuu arkay ciwaanka kitaabkan oo la oran jiray Muujinta Xaqa. arrinta lala yaabo ayaa ah in kitaabkani uu ahaa kitaab ka jawaabaya weydiimaha nin ahaa dadka diinta Kiristaanka faafiya, kaasoo uu qoray wadaad la oran jiray Raxmatullaahi al-Hindi. kitaabkani weydiimaha uu ka jawaabaya waxay ahaayeen isla weydiimihii ay weydiin jireen ardaydii lagu tababari jiray kulliyadii aynu soo sheegnay ee ku taalay kasoo horjeedka dukaanka Sheekh Axmed Diidaad. kitaabkan oo ku qornaa luqadda Carabiga ayaa sida ka muuqata magaca qoraaga waxa uu ahaa ninka qoray ee la oran jiray Raxmatullaahi al-Hindi, wadaad Hindi ah oo ku noolaa magaalada barakeysan ee Maka. waxaana la daawacay kitaabkani sanadii 1864 iyadoo lagu daawacay magaalada Istanbul oo xilligaasi hooy u ahayd khilaafadii dowladda Cusmaaniyiinta. Axmed Diidaad ayaa sheegay in kitaabkani uu door weyn ka ciyaaray in si weyn ay noloshiisu isku beddesho. waxa uu ogaaday xilligaasi inuu leeyahay fahan aad u sareeya, wixii uu akhriyana uusan iloo weynin. sidoo kaleeto wuxuu adeegsaday jawaabihii ku qornaa kitaabkaasi, waxa uuna ugu jawaabay ardaydii faafin jirtay diinta Kiristaanka ee dhigan jirtay kulliyadii u dhoweyd dukaankiisa. sidoo kaleeto wuxuu dareemay Axmed Diidaad inuu yahay qof wax qancin kara, sharaxaadiisuna ay soo jiidasho leedahay, awoodna u leh in uu aftahanimadiisa iyo hadalkiisa ku qanciyo qofka uu la doodayo. wuxuuna noqday mid xoog ka saara kobcinta iyo kor u qaadidda aqoontiisa. waxa uu xifdiyay Qur'aanka Kariimka, wuxuuna bartay fiqiga iyo taariikhda iyo siiradii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee si uu u diyaar garoobo faafinta diinteena suuban. muddo markii uu shaqaysanayay ayuu Sheekh Axmed Diidaad waxa uu u safray dalka Bakistaan 1949. halkaas ayuuna ku guursaday oo ay ugu dhasheen 2 wiil iyo gabar
1952 ayuu dib ugu soo laabtay Koonfur Afrika. Sheekh Axmed Diidaad wuxuu qoray 24 buug oo dhammaantood ka hadlaya diinteena iyo difaaceeda wuxuuna galay 125 muxaadaro iyo doodood. wuxuu Axmed Diidaad dood adag oo loo babacdhigi karin la galay baadiriyadii ugu waaweynaa Kiristaanka. waxaa sidoo kale la guddoonsiiyey Sheekh Axmed Diidaad abaalmarinta Boqor Faysal ee dadka u adeega Islaamka 1968. waana mid ka mid ah aqoon-yahanada Islaamka ee bartay diinta Kiristaanka kuna xeel dheeraaday, waxaana gacantiisa ku islaamay kumanaan Kiristaan ah. wuxuuna adduunka ka hayaamay isagoo sita dhowr ninaasood oo sharafi ka muuqato, sida ninka waxqabadka leh, fardafuulkii Islaamka, iyo Kiristaan ceediye. waxa uu waxbaray oo arday u ahaa Sheekh Axmed Diidaad halyeygii Islaamka ee Dr. Sakineig, oo kaliya aan ahayn qof la loolamay diinta Kiristaanka kaliya ee mar hore la wada loolamay Kiristaanka, Buddhismka, Hinduuska iyo ilxaadka. mar uu mid mulxida ku yiri Sheekh Axmed Diidaad, ka waran marka aan dhimano haddii uu qiyaamaha been noqdo, xaalkaaga siduu noqon lahaa Sheekh Axmedow? Sheekh Axmed Diidaad ayaa ku jawaabay oo ku yiri, kolay baxaalkaygu kama xumaanayo xaalkaaga haddii aynu dhimano oo uu qiyaamaha run noqdo. sidoo kale mar uu mid Kiristana su'aal weydiiyey oo yiri, maxay diintiinu idinkugu banaysay in aad guursataan gabdhaha Kiristaanka ah, annaguna noogu diideen gabdhihiina muslimiinta inaan guursano? Sheekhuna wuxuu ugu jawaabay, anagu nabigeena ayaanu rumaynay oo gabdhihiina ayaa noola baneeyay, adinkuna nabigeena ayaa diideen oo gabdhaheena ayaa la idin diiday. 1969 ayuu Axmed Diidaad oo ka soo laabtay socdaal dacwadeed uu u aaday Australia ku dhacay faalig ama qalal uu dhuliyeel u noqday. inta uu xanuunsanayayna waxaa caafimaadkiisii gacanta ku hayay madaxda dowladaha Carabeed oo dariilkiisii qaabilsanaa. 9 sannadood ee noloshiisii ugu dambeysayna waxa uu ku qaatay sariirtiisa dusheeda, waxaana mar waliba garab taagneed xaaskiisii Xawa. ugu dambeyntii waxa uu geeriyooday maalin Isniin 8 Agoosto 2005, da'diisuna waxay ahayd 87 jir. allaha ka waraabiyo naxariistiisa janno. sheekhan sababta uu ahaa soo islaamida kumanaan qof oo muslimiin ah maanta. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal kulanti dambe oo xiiso leh.